هلا السلام عليكم أصحاب channelkii ku xiran asxaabteyda say tihiin say ku barideen say ku horgasheen asxaabta waa idin salaamayaa salaan qaali ah hawada idin soo marinayaa kusoo dhawaada channelkeyga ciid mubaarak baryahan waan kala maqneen ciidaa la joogaa ciid mubaarak kulan caam waanta bilqeyr ciidka waxaa waa arig la cunaayo mafaad hadda ari soo cuntay aa soo baashaashay congratulations aa wadankii ku nooshahay mafaad anaga reer qurbaa wadaan nahay chicken iyo waxaan sugaay hamburger waxaas ma faanta unless ee ku kala kacsaneen oo millionaire ahayn oo ar lagu qalay marka asxaabta aside from that joke waxaan idin soo dhawaada welcome to my channel hada channel ku cusubtay falan subscribe isar like hada nagu soo laabanaysiina soo laabasho waxaan ku mahadsantahay sida channelku ugu xirantahay videoga like siya daakashay asxaabta maanta arrimo badan horta dhinaca Soomaali community ka socdo walaa maanta marka soo fadhiisanay waxa ku tali jiray inaan program aan ka hadlo wiil Soomaaliyeed oo maxalla dhinaca Minnesota far wiil Soomaaliyeed video ko kana inay soo saaraya afartaas wiil Soomaaliyeed maanta shalay Amsterdam high school oo graduation ka dhacay xabada ku furay Barnesville Minnesota ma fahanti dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa Ilaahay soo hadiyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maxallahaye waalidiintoodana Allah wanaajiyo because waalidiinta hadii wanaagsan yihiin ay ka taxdirayaan ay ku tarbiyanayaan maxallahaye waa wanaagsanaysa honestly anaga Soomaalida maamooyinka waalidka cunto la raadinayaan hooyada way shaqeynayaan aabina waa jooga waa dil rabo ama uu jooga caruurta danka ma lahan maxallahaye wiilashan si gacanta ugu baxsanayaan maxallahaye Ilaahay wiilasha Soomaaliyeed iyo maamooyinka abooyinka waxa manaajiyo insha Allah anaga nacnaa manaajiyo aniga caruurtida xajkiga Allah na wanaajiyo waalidkayga walaalay marka asxaabta duceysta insha Allah caruurta Allah na wanaajiyo caruurta ceeyda iyo xawarkana ka daaya sheekada marka saas ay ku saabsaneed maanta waxa rabinaa ka hadlo wiilkan maxallaha magaciisa wiilkan horta waa ka xishoodaa I wish inuu magaciisa ka bedel lahaa walaalkii Soomaaliyeed dad taqaaniin u dira videogan qooqaaga qaranka magacaadi aad xun waaye qof dhan intuu isfiiriyo qooqaa isku baxiyay qooqaaga anaga Soomaaliyeed daanahay magac xun u naqaanaa in Englishna waxa waaye the horny man marka wax xun waaye that's a really bad name first no qofinadan baxsado second ballna wiilka maamadan qaran yaasiga maxallaha misunderstandings ka dhacay oo isfahmi waay maadaama maxallaha wiilka gurigeedu ku noolaa wiilkaana dhibaatooyin badan oo maamadaas ka sheeganaya maamadaas wuu eedeynayaa maxallahayay wuxuu ku eedeynayay inay maxallaha si xun ula dhaqantay I have video uu ka hadlayo waxyar waa noo daarayaa fiirsada kadib maxallaha ra'yigii waa sii wadaya insha Allah horta videoga la fiirsada suu eedeynayo wuu eedeynaya I have my laptop here guys kalmada ay ii xijin jirtay qadan waxay ahayd lagu wada noolaan maayo gurigan lagu wada noolaan maayo inankeedu marka uu soo boodo wuxuu oran jiray balag waniga ku sheegayay ana ku sheegayay daqiiqada waan gala qolkayga xitaa waxay tiraahdaa maxamed dadka uu sheego laba sheego saddex sheegay mas baan korsanayaa qofkan korsanayaa waa mas waan aamusa qolkaygaas ka gala waxa dhacday aan idin aliya dibe rabadaanteedii waa la weydiin karaa 150 reer jaarka ee noo dhawaaday i daawanayaan markhaatigiina aakhira malaa'iktu ha furto haddaad markhaatiga fir weydaan rabadaanteedii la ciiday rabadaanteedii la ciiday markhaati ma ahaydeen in banaanka la soo dhigay shandada oo ay soo yimaadeen malaa dhowr iyo 20 qof oo shandada banaanka qadar soo dhigtay aan isri dantaada ku gaan dantaada maqaar ay baa loogu saxaa ku gaan waad xasuusataan baan malaynaya markhaatigiina aakhira Ilaahay ha furo haddaad furtaan markhaatigiina aakhira ha furo Ilaahay haddaad furtaan jaarkayga weey waa la isu soo baxay qadan heer cadadeedu ay ka gaadhay digrigeedu heer uu ka gaadhay inay gurigeyga saarto qadan dhulkay way dhacday dheekarka Soomaaliya uu ku kacay qadan inankeedu bakeeri buu qaatay intuu ii kala jabsaday bakeeri dhooba ah oo bakeerida dabada dhoobana waa la igu hagtay waa iskaga socday dhowr casho markii la joogay
ayaa haddana heshiis dhacay. waxaan ahay anigu dulbana bilaa hooyo ah, waxaan ahay anigu dulbana bilaa garab ah. Yes, waan ogolaaday, waan raacay. cidna uma sheegin, bulshada lama wadaagin, social media ma dhigin. waayahay intaa markii laga yimi ee laga soo tegay ee laga yimi qadan, halkaa sheekada dib baan idinku celiyey. waa rabadaanteedii baan idin sheegay intusay. Okay, as you guys can hear clearly, wiilkan imaamada way isdirireen, way isfahmi waayeen. Kolley labada qof markas dagaalaa isfahansho la-aan ka jirto meesha. So wiilkan maxaa side-ka story-ga ugu sheegayo waa side-kiisa. Ma fahantii uu soo fadhiistay uu ka sheekeynayo. Yes, wiilkan dhibaato waa gaadhay, I believe it. Laakiin he's telling us his side of the story. Because ani maanta daa inay imaado qof aas qabsanay aniga sheekeeyo idima dhahay oo qofkaas saas uu sameeyay aniga ka qaldanaa waxaas isku diranay. The cause of the issue ma sheegayo, laakiin wuxuu sheegayaa in maamada anayto ay jirtay ay dhibaateyn jirtay iyada wiilkeeda dhibaato ay u gaarsiiyeen aflagaado ay guriga kasoo tuurtay, xataa heer maamada xataa xanaaqday maxaa dhiig kar ku kacay. So maxaa heerkaas qofka maxaa gaarsiin karo waa inaan isweydiinaa. maamo qadan qaran maxay u xanaaqday, maxaa wiilkan uu sameeyay. ayadana side of story inay soo fadhiisatay koley I didn't listen to her side of the story, laakiin cunugan sidekiisa markaa dhageystaa rabay inaan ka hadlo. wiilkan maxaa lahay wiil waxaa la rajo waaye, ilmaha rajo markay yihiin way is-ilkaambiyaan. maxaa lahay caruurteen ilaahay rajo kama dhiginta, rajada way wanaagsan, Allah u sahlo insha Allah, aamiin. maxaa lahay dhibaatadaas haysato wiilkan rajanimo kusoo koray, marka uu qudad baa hayso wiil asaagiisa oo la eg ayay maamadan haysataa. marka wiilkii asaga markay geeskas galiyaan maamada waxa u badneedaa u maleeya wiilkeeda inay difaacdo, saas ugu xanaaqay. maxaa lahay isku fahmi waayeen, isfahanshada ugu jirta aniga aan u kasay. wiilkan waxaa lahay maamada fiidiyoyo kasoo duubay, waxaa la iyadoo qaawan bicturadeeda xataa banaanka soo dhigayaa lahay. maxaa lahayay aniga sheekadaas aad baan ugu xumaaday. maxaa lahayay soomaalidana badanaa aniga waxooda markasta waxaa dhaha ma aamini dadkan, because dadkan lacag bay raadinayaan. dadka wadanka ku nool waxay barteen qurbi joogta sida lacagta loogu cuno, sida qurbi joogta qalbiga loogu xado, sida qurbi joogta laiskugu uunsiiyo. way is uunsiyaan, way is dhibaateeyaan, way ismurjiyaan. So it could be maxaa labadooda inay soo heshiiyeen this is a program lacag lagu cuni karo oo lacag lagu cuni rabo, or dhibaatada inay si sax u dhacday. wiilkan imaamada anayto ay wada qaldameen. maxaa lahayay iyadana wuxuu kasoo duway iyadoo ay tamayso maxaa nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo u gafayso. aniga ma dhageysanin, laakiin I hope maxaa lahay inay maxaa lahay soo toobad keento iyo cafis weydiisto ilaahigeeda. uma baahna anaga inay cafisna weydiiso, ilaahay u baahantay inay cafis weydiiso maamada. laakiin aad baan ugu xumahay social media heerkan hadda inay taagantahay maanta ay taagtay, oo heerkan lacag la iskaga wada cunayo oo la isku hoosiinayo. ixtiraamkii dadka weynaa iyo dadka yaraa lumay, ixtiraamkii diinta xataa lumay. aad baan ugu xumahay. It's up to you guys that if you guys wanna bathe it's good, lacagaad siinaysiin. laakiin aniga waxaan dhihi lahaa wax kasto maxaa lahayay maskaxdiina kala socda. The fact that his name is qooqaaga cunugan, aniga I don't know, it throws me off. maxaa lahayay it throws me off. maxaa lahayay ma ka helin magaciisa iyo dabeysku uu siinayo iyo qaababkiisa kama helin. maamada weyn qaababkay u fududahay heesaa iska soo duwayso oo dhaqmaysa kama helin. maxaa labadoodan ani ma aqaani, laakiin waxaan dhahay you guys need to be aware of things like this in social media. asxaabta waa idin salaamaya, videoga alaas kusoo gabagabeynaya. khayr aad rajeen.